عبد أحمد بن سالم oo u dhashay dalka Yemen ku noolaa dalka Sacuudiga gaar ahaan magaalada Yombo. Cawad wuxuu ahaa nin xaas iyo caruur leh haddana aanan shaqaysanin. Xaaska iyo caruurta ayaa magaalada u tuugsi tagi jiray. Inta yar ay soo helaanna waxay gacanta ka saari jireen Cawad. Haddaba Cawad sheekadiisii oo faahfaahsan waatana dhagihinaya maahiya. maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa dhacday Cawad oo fadhiyo meelaha kafeega lagu cabo meel kamid ah ayuu wuxuu ku arkay gabar Indonesian ah. Gabadhaasi oo ahayd gabdhaha guryaha ka shaqeeya. Gabadhaasi oo magaceeda loo yaqaan Fatima ayay is hadal dhaafsadeen. Hadalkaas oo ah in uu Fatima wax tari doono, garabna siin doono, nolosheedana wax weyn uu ka bedeli doono. Haddaba Cawad iyo Fatima lambaradii sidaas ayay ku kala qaateen. wuxuuna ku balamiyay meel kamid ah magaalada oo uu kireeyay guri. Cawad iyo Fatima marka ay kulmeen ayna ku kulmeen gurigii markaas uu ku balamiyay Fatima. wuxuu ku bilaabay in uu Fatima garaaco uu aad u jir dilo kadibna barkimo inta uu soo qaato sankiyo afka uu ka saaro ilaa ay dhimato. markuu ogaaday in ay Fatima nafta ay ka baxday ayuu kufsi kula dhaqaaqay. kufsigii markuu u geystay ayuu haddana wuxuu ka qaaday sawiradaas oo ah kuwa markaas asaga uu ka dhigan doono mid xusuus ah. sawirada marka uu ka qaaday kadib timaheeda qayb kamid ah ayuu soo jaray kadibna uu jeebkiisa geliyay. Cawad danta uu ka lahaa markuu gabadhi ka dhameeyay ayuu soo qaaday wuxuuna keenay meel loo yaqaan naqiil shaarac oo waliba ah meel markaas cidla ah ciiduna ay ku badan tahay. halkii ayuu gabadhi ku tuuray bartaas ayuu ka dhaqaajiyay. haddaba Cawad gabadhi labaad sidee bay ku kulmeen? waxay ku kulmeen ileen wuxuu ahaa nin darbiyada iska warwareegay. wuxuu arkay gabar gaari ku jirto. gabadhii ayuu ugu tagay. gabadhaasna waxay ahayd gabar isla Indonesia u dhalatay. gabadhaas ayuu daaqada intuu u soo istaagay uu yiri halkee baad u socotaa? waxay ku tiri aniga waan dhibaataysanahay nin baa jira bay tiri oo anaga maxay ahayd wakiil naga ah oo na geeyay shaqooyinka. waxaana ka cabsi qabaa dalkayga in lagu celiyo. anna dalkayga ma rabo, waxaan doonayaa inaan wadanka ka shaqaysto. waa Janice u baana. wuxuu ku yiri aniga ayaa shaqo ku siinayo. wax alaala waxa doonaysidna aniga ayaad iga helaysaa buu yiri. diyaar ma u tahay? gabadhii waxay tiri ninkan bahdaan ka tagayo gumaysigiisa iyo dhibkiisa waxaan diyaar u ahay haddaba inaan ku raaco. waayahay. halkii ayuu gabadhii uu ku soo waday. wuxuu u geeyay meel cidla ah isla bartii hooshii sidii ahayd halkii ayuu ka bilaabay. waa dilkii sidii ay dilkii gabadha hore ugu geystay ayuu gabadhana dilkii ugu bilaabay. gabadhii sidoo u garaacayay haddana wuu dilay. markuu ogaaday in ay dhimatay ayuu kufsi kula dhaqaaqay. markuu kufsaday kadib haddana timaheedii ayuu qayb ka jaray. markuu timaheedii qayb ka jaray sidii caadada ahayd sawiradii haddana ayuu ka qaaday. midii xigta waa midii haddaba arrintii ugu xumeyd waxay ahayd markii uu la kulmay gabar isla u dhalatay dalka Indonesia. gabadhaasi ayuu wuxuu ku soo shukaansaday ama uu ku yiri waan ku guursanayaa, waxaana ku geysanayaa gurigayga. sidii ayuu ku soo kaxeeyay oo gurigiisii uu ku keenay. laakiinse umuusan sheegin in uu dhalay 4 caruur iyo xaas inay u joogaan inta uusan u sheegin. isla markuu guriga uu soo galiyana caruurtiisii iyo xaaskiisii markay arkeen ileen ma hadli karaan. mar walba caruurtiisa uu garaac jiray oo xaaskiisina uu garaac jiray oo meel buu marka hore iska soo saaray. gabadhii markii aragtay caruurtan iyo xaaskan markay indhaha ay saartay ayay albaabka iska furtay, orodna isku taabatay. wadadana intii ordi karto ay orday. laakiinse nasiib wanaag wadada cid joogta ma aysan jirin, albaab furnaana ma aysan jirin. gabadhii ayuu ka daba orday isagoo markaas sita mindi aad u dheer. ayuu gabadhii ka daba cararay ilaa uu 3 jeer oo dusha uu kaga muday oo caloosha kaga muday. iyadoo gabadhii dhaawac ayuu dusha ku soo qaaday. wuxuu keenay isla gurigiisa, caruurtiisa iyo xaaskiisa ayuu dhax keenay. haddaba yaa arkay
cidna ma arkinin oo aanan ahayn caruurtiisa iyo xaaskiisa oo markaasi daaqada taagan. Ayaga kaliya ayaa arkayay falkan foosha xun ninkan uu ku dhaqaaqay. sida caadada ahayd, marba hadduu dhaawaceedii uu soo qaaday, gurigana uu keenay, qolna uu la galay, muxuu samayn karaa? Waa sidaad ogeedeen. wuu dilay, nafta markay ka dhacdo arkay, wuu kufsaday meedkeeda, wuxuu u geystay haddana sawiro inuu ka qaado, tinteeda qayb ka midana inta uu jarto jeebkiisii geliyo. meedkiina guriga uu ka soo saaray, xaguu geyn doonaa? meedkii marka uu soo qaaday uu gaarigiisii ku riday, wuxuu geeyey meel lagu magacaabo Yumbu Camri. markaan sidii hore uu samayn jiray si ka duwan ayuu sameeyey. wuxuu sameeyey gabadhan wuu gubay, ilaan kuwii hore wuu aasi jiray, gabadhan wuu gubay. marka uu gubayna kadib sidaas ayuu ku aasay. gurigiisii ayuu ku soo laabtay asagoo aad u malaysid nin aan weligiiba waxba samayn, khaladna aanan gelin. markuu guriga yimi wuxuu la kulmay guriga aanan joogin caruurtiisa iyo xaaskiisa, ilaan waaba baxsadeen, way ka tageen. ilaan ninkan danba uguma jirto, waxa weeye qofkii tagaya iyo qofkii joogaya asaga ma kala jeclo oo danna kama lahanba. dhowr sano kadib ayaa waxaa dhacday caruurtiisa mid ka mid ah oo dad iska dhex tuugsanayo ayaa waxaa gacanta ku dhigeen ciidanka. markaasay waxay ku yiraahdeen, waryaa maxaad ahayd? markaasaa wiilkii yaraa wuxuu sheegtay magaciisa ahayn iyo magaca aabihiisa aanan ahayn. markaasaa waxaa la yidhi, war nin matiide Sacuudiyaan oo Sacuudi u dhashay matiide halkaad u dhalatay sheego. markaasuu wiilkii yaraa wuxuu sheegtay magaciisa runta ahaa iyo waddankuu u dhashay inuu ahaa Yemen. waxaa lagu yidhi, meeya aabbahaaga aawe baa lagu yidhi. markaas wuxuu ku yidhi, aabbahayga awal waxna ma tari jirin, horteena ayuu gabar ku dilay, sidaas darteed anagu waan isaga soo cararnay. walaaladee iyo hooyadeeba meel gaar ayaan ka degannahay, mar horaan noogu dambaysay. arrintii halkaas ayay ka qaraxday, arrintii halkaas ayay ka fashilantay. haddaba maxaa dhacay? askariga oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yidhi, maxay ahayd gabadha la dilay? markaasaa ilmihii yaraa wuxuu yidhi, waxay ahayd gabar Indoneesiyaan ah. haddaba saldhigga booliska waxaa yaalo 3 kiis oo gabdho Indoneesiyaan ah in la laayahay. wiilkii yaraa ayaa lagu yidhi, waryaa adreeska gurigiina waa inaad noo sheegtaa. ciidanka sidii ayay ku soo baxeen, waxay yimaadeen gurigii oo markaasi fadhiya dilaagii weynaa. gurigii markii ciidanka ay soo galeen, isla markiiba ay guriga baaritaan ku sameeyeen, maxay arkeen? waxay arkeen sawiradii gabdhihii meedadka markaas uu ka wada qaaday. waxay arkeen timihii gabdhaha uu ka wada jaray, wixii caddeyn oo dhan halkaas asagaa marka hore ku diyaariyey. caddeyntii sidii ayaa lagu helay, ninkii sidii ayaa lagu soo qabtay, sidii ayaa waxaa lagu keenay maxkamaddii, sidii ayaa waxaa loogu xukumay dil toogasho ah aan marnaba lahayn ka noqosho. meedfuula sidaas ayay sheekadiisii ku soo gabagabowday. waa anigoo Maxamed Xasan Diin. sheekadan sheeko la mid ah intaan dib idinku soo diyaarin doono waxaan idin leeyahay cawaysin wanaagsan, maalin wanaagsan, barqo wanaagsan. waa like, waa share, waa love. wow, waan jeclahay intaba. bye bye.